إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله دوما سليمان هو الدمسوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتوحيد والمدود وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو سلام كدي waxaanu soo dhaweynaynaa oo mahad celinaynaa oo aad iyo aad soo dhaweynaynaa haweenka ama dumarkan hoodaa leh ee maanta xafladan diriiskan qiimaha leh u keenay ardaydan halkan joogta oo sanad walba keena waqtigaas oo kale ciidda ku soo beega oo u keena aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay halkii aad ka soo saarteen ilaahay miisaanka xasanaadka haydu ku bedelo waxaad keenteen waxtarkaas iyo dadaalkaaba waanu ku mahadnaqaynaa culimada ka hawlgashay ee hawshan soo abaabshay ee ka shaqaynaysayna aad iyo aad baanu ugu mahadcelinaynaa waxaynu halkan aynu uga hambalyeynaa walaalayaal hablaha soo bixiyey dareeska qiimaha leh muddo badan bay soo wadeen hablahani ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryanaa miisaanka xasanaadka inuu ugu daro الحمد لله رب العالمين ونسول دويننا آديات ونسول دويننا تذكر شرف آديات ونسول دويننا الحمد لله رب العالمين قوتك كسو فرحين halka ka soo qaadayna ilaahay wax khayr leh u kaliyo aadiyaad baan u salaameynaa waxaan u duceynaynaa hablaha ururka hooda leh ee markasta ubadkayaga dharka ciida u keenaya ee ka soo farxinaya waxaan u leenahay sida aad uga farxisan awlaada Allah idinka farxiyo idinkana miisaanka xasanaadkana Allah idin saaro ilaahay mahadiisa kadib waxaan u mahad celinayaa hablaha hooda leh oo ardayda sanad walba labada ciidood soo ciidtiya oo fahmay hablahaasi qiimaha ay leedahay sadaqadu iyo dadka walaalood inay wax siiyaan fahmay nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis kale walaalayaal wuxuu inoogu tilmaamay sadaqadu inaanay nusqaamin maalka ma naqasa sadaqatun min maal bal way siyaadisaa sadaqadu maalka way siyaadinaysaa markuu qofku maalkii wax ka bixiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii uu siiyay wax ka bixiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagana wuu kordhinaya wuu siyaadinaya laana maxaa yeelay shukriga ayaa macnihiisa waxa la dhahaaba qaydul mawjuudi wa saydul mafquud wixii ka maqnaa uu ku soo gaarinayo wixii aad haysatana uu ku ilaalinaya qofku markuu ku xamdiyo nimcada ilaahay siiyay marka waxay ka mid tahay qofku inuu maalkii wax ka bixiyo xamdigii bay ka mid tahay waxa marka walaalayaal ay garteen hablahaasi inay maalkoodii ku bixiyaan meel ugu khayrka badnaa oo ah halkii lagu baranayay kitaabka ilaahay iyo culumtii shariicada iyo nabi maxamed lagu baranayay ilaahay lagu baranayay ee kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu baranayay inay ku bixiyaan ayay fahmeen hablahaasi waxaan leeyahay dadka kale la midka ah ee ilaahay maalka siiyey war hablahaasi tallaabada ay qaadeen iyo dhaqanka wanaagsan iyo sunnaha wanaagsan ay noo jideeyeen waxa weeyaan idinkuna raaca oo taa yeela أنا معايا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها قفك السنة وناكسن تذيا وحولي هاي قفك كيف عمل فلا وحلالي يتيك عمل فشاء يردن أيام مقرن ساتر كيسي ليا قفك أسي مركز السنة وناكسن بينو تذيين إننا نأخذ ضيرنا وأنت اللعبة قادنا إن ما تقيبها قبله هنا كلا جوكتها فاطمة علي ويرر فوسية محمد حسن أيام أنت هنا كلا جوكتها قبله الله وحلاه هاي إلهي دنبقي إنها دافو دنبقي والدينتي إننا لها دافو إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك
idinku daro waxaa ma garanaysaa xusid mudan oo iyadana u baahan in la xuso waynu arkaynaa walaalayaal midhihii meeshaa ka soo baxay iyo tacabkii aynu wadnay dhinac walba ka wadnay ayaynu durba midhihiisii arkaynaa waxaa la yidhi man zaraca nabat qofkii ma garanaysaa wax beeraa wuu ka midho dhaliyaa waman jadda wajada qofkii dadaalana dadaalkiisa ayuu helaa waxaynu arkaynaa insha allahu tacaala dadaalkeennii midhihiisii baynu arkaynaa maanta ardaydii madrasada ka soo baxday inay tujiyaan taraawiixdii iyo tahajudkii oo macallimiintii iyo culimmadii ay ku nasato oo iyagu maanta ay tujiyaan ayaynu walaalayaal nasiib u yeelanay oo ardaydeennii ay tujinayaan magaalada iyo meelo kaleba oo haddii allaba ku reeyo aqoontoodii iyo waxbarashadoodii dadkii ay magaranaysaa aada loogu faraxsan yahay oo heer sare ay noqotay oo wax ilaahay loogu mahadnaqo dee nimcadaa waynu ku mahadnaqaynaa walaalayaal waa intuna inaad dareersanaadaan oo arrinkaa la socdaan baa la doonayaa ubadkaa inoo soo baxay oo inu u ducayno oo ma garanaysaa inuu afooyinka iyo balaayooyinka iyo isha iyo sixirka iyo xaasnimadoo dhan iyaga qudhooda dhaafiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala ku aflaxa ee khayrkaa aan ka laabana haruugu sii socdo inuu ka yeelo ayaynu iyagana ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa walaalayaal hoodaale ayaan ka socdaa marka halkan aad waxa farxadii ah caruurtan yaryar maasha allah tabaaraka raxmaan aad baan ugu faraxsanahay annaka oo ka mid ah hablihii halka caruurta yaryar labada ciidoodba u keena insha allahu tacaala ilaahay tacabkii uu inoo hirgeliyey maasha allah tabaaraka raxmaan waxinoo quraankii dhameeyay iyo inta dhamayn doonta iyo inta ku jirtaba ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu horta ilaahay barakeeyo awlaada ilaahay awlaada inoo xafido ilaahay waxaynu ka baryaynaa afaadada adduunyada ku soo kordha inuu ilaahay inaga kor qaado dalkeena iyo dadkeennaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii shara ilaahay inooga nabadgeliyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa kuwa dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfacana ilaahay awlaada inooga dhigo intii dhimatay allah u naxariisto inta bugta allah caafiyo inta caafimaad qabta allah u siyaadiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay ceebteena ifyateena aakhira allah asturo ilaahay ramadaanteeda nimco iyo naxariistiisa allah inoogu gaadhsiiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa sheekheena sheekh aadanna inuu ilaahay caafimaad sareecana inoo siiyo oo ilaahay cimri barakala siiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaaga uu samaynayo ilaahay ugu dambi dhaafo dambigiisa hore kiisa dambaba rabadaanta waynu sii wadacaynaaye ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa dambigooda dhaafo kumanaanka naarta laga xoreeyay allah inaga dhigo ilaahay kumanaanka naarta laga xoreeyay allah inaga dhigo awlaada yaryarna allah inoo xafido allah inoo xifdiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waridaaka allahuma khayra assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin farxad badan kol haddii maanta aynu ciidsiinayno caruurteennii xufaadda ahayd ee runtii tacabka badani uu soo galay waxaanu aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa mahadda ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib foosiye maxamed xasan iyo faadimo cali weerar oo inagala jooga hablihii reer hooland ee hoodaale oo iyagu nasiib u helay caruurteennaa xufaadda ah ee maanta arkaysaan siday qur-aanka u akhriyayaan ee maanta arkaysaan inay taraawiixdii tukinayaan dadka sanad walba ciidsiiya ee ka farxiya iyaga oo kitaabka ilaahay kor u qaaday ina allaha yarfacu hada alkitaaba aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay wuxuu ka waramay kitaabkan qur-aanka ilaahay dad buu kor ugu yeelaya hablahaasi waxaanu leenahay ilaahay dembigiina ha dhaafo dariiqa jannada ilaahay ha idiin fudaydi sidaa aa kitaabka ilaahay kor ugu qaadaysaan ilaahay kor ha idinku qaado baanu leenahay idinka iyo caruurtiina iyo ehelkiina iyo dadkiina oo dhan jasaakum allahu khayran dawadigaa arkaya maanta farxaddaasi caruurteennaasi quruxdooda idinkaas sababo ah waayo nadaafaddu waa muhiim tuulay ku nool yihiin dad badan oo jilicsan baa ku nool marka in qofkii masaajidkii isagoo nadiifa uu soo galo oo dharkaa ah ma garatay arkistaan quruxdooda iyo uniformka dee ay ku wada joogaan bacda fadli illaahi subxaanahu wa tacaala idinkaa sababo ah aada baa umahadsantihiin watacaawanuu cala albiri waataqa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan khayrkaa inaynu isu kaashano caruurteenna wax ka dhigno diinta ku noolayno si ay mustaqbal u yeeshaanna
dadka wax badan ka qabtay baatiin. Jazaakum Allahu khayran. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.